shuban biyoodku waa fuuqbax degdeg ah oo sababa nooc ka mid ah ilmaaragtayda bakteeriyada ee loo yaqaano Vibrio cholerae kaasi oo la isugu gudbiyo laguna kala qaado biyaha ama cuntada wasakhaysan aan nadiif ahayn. Shuban biyoodku waxa uu aadamaha ku sababi karaa fuuqbax halis ah oo geysiin kara saacado ama maalmo kooban gudahood inuu u geeriyoodo qofka waasiba xanuunkani. Muuqaalkan waxaynu ku faaqidi doonaa siyaabaad ku badbaadin karta nolosha qofka oo haleelay ama deegaanka uu saameeyay xanuunkani. adigoo maanka ku haya ilaalinta nadaafadu inay tahay muhiimadda koowaad ee laga hortagi karo xanuunkani. Marka shuban biyood la xaqiijiyo waxaa muhiim ah in hawlwadeennada caafimaadku si dhaqso ah uga hawlgalaan una bilaabaan daaweynta xanuunka iyaga oo ay barbar socoto hawsha sugidda fayadhowrka iyo xakamaynta aagga xanuunka dilaacay. Ujeedada ugu weyn ee aynu ka leenahay daaweynta shuban biyoodku waxay tahay inaynu u samayno fuuq celin bukaanadii uu haleelay xanuunkani si aynu ugu soo celino macdanihii iyo electrolyteski kaga baxay shubanka iyo mataga intii uu hayay xanuunku. 80% ilaa 90% bukaanada oo haleelay shuban biyoodku waxa lagu fuuq celin karaa dareeraha loo yaqaano ORS oral rehydration solution kaasi oo ah fuuq celin ka kooban sonkor, biyo iyo milix. halka kuwa fuuqbaxoodku aadka u daran yahay ay muhiim tahay in lagu fuuq celiyo dareerayaasha laga qaato xididada iyo fuuq celiyaasha lagu kabo daawooyinka jeermis-dilayaasha ee loo yaqaano antibiotic iyadoo ay muhiim tahay in loo qaado goobaha caafimaad si xaaladooda loola tacaalo. waxaynu halkan ku bari doonaa guud ahaan bulshooyinka iyo gaar ahaan dadka ku nool deegaanada uu ka dilaacay shuban biyoodku calaamadaha lagu garto shuban biyoodka. haddii aad aragto matag saayid ah iyo shuban xad dhaaf ah, fadlan la xiriir goobta kugu dhow ee caafimaad una soo sheeg tibaaxda iyo tusaale una soo sheeg waxyaalaha aad aragtay si ay ku caawiyaan hawlwadeennada caafimaadka ee ku sugan deegaankaasi. isku day markasta oo aad calaamadahan aragto inaad ilaaliso nadaafadda hoygaaga, cuntada iyo tajirkaagaba. fadlan dabool cuntada, iska kari biyaha aad cabayso, mar walba aad musqusha gasho iyo markasta oo aad dad salaantaba isku day inaad gacmahaaga ku dhaqdo saabuun. haddii uu haleelo qof ka mid ah qoyskaaga xanuunka shuban biyoodku, fadlan samee fuuq celinta ugu muhiimsan ee lagula tacaali karayo xanuunkani oo ah dareeraha loo yaqaano ORS. haddii aan ku dhaweyn adeeg bixiye caafimaad, isku day inaad ku samaysan karayso gurigaaga fuuq bixiye caafimaad. si aad u diyaarsato fuuq celiyaha guriga lagu sameeyo, fadlan soo qaad weel maran oo nadiif ah, ku shub biyo, biyahaasi karkari kuna daa dabka muddo 1 minute ah. soo qaad weel cabirkiisu dhan yahay 1 litir, ku shub biyo gaaraya 1 litir, kuna dar 6 malgacdood oo sonkor ah iyo 3 malgacdood oo milix ah. isku walaaq kadibna si bukaankii uu haleelay xanuunku si ay ugu noqoto fuuq celin. intaasi wixii ka dambeeya u gudbi bukaanka adeega caafimaad iyo goobta lagu daryeelo bukaanada xaaladooda aad ku daran tahay. isku day inaad wacyi geliso deegaankaaga, tustana habka ugu wanaagsan ee biyaha loo nadiifin karayo iyadoo la isticmaali karayo maadooyinka biyaha lagu nadiifiyo ee ay ka mid ka tahay chlorine amaba ay isticmaalaan dadku ama ay ogaadaan dadku inay biyaha kariyaan. ku wacyi geli dadka deegaanku iyo eheladaadaba inay markasta gacmahooda ku dhaqaan saabuun. u sheeg inay dadku ku saxaroodaan musqulaha. tallaabada ugu habboon ee aynu kaga badbaadi karayno faafidda xanuunkani waa inaga oo ilaalina nadaafadda qoyskeena, deegaankeenna iyo guud ahaan bulshada. siiba waa inaynu ka taxadirnaa nadaafadda biyaha. isku day in 30 mitir wax ka badan aad qodo godka lagu saxaroonayo. cuntada markastaba waa inay noqotaa mid aad loo kariyay lagana hubsaday in laga dilay jeermiska. deegaan la ilaaliyay nadaafadiisa iyo biyihiisa ayaa laga hortagi karayaa faafitaanka xanuunka. ka digtoonow shuban biyoodka yaan ku faafin deegaankaaga. ilaali nadaafadda oo la ilaaliyaa waa iimaanka barkeed.